فيد wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan qodobada wararka idaacada Risaale caawana kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah ciidamada Ethiopia oo magaalada Baydhabo maanta ku xiray wadaadka Muqtaar Robo isla maantana wadaadkaas la keenay magaalada Muqdisho wasaaradda amniga war ka soo saartay xariga musharax madaxweyne Muqtaar Robo xiisad ka dhalatay xariga loo geysay Muqtaar Robo oo wali ka taagan magaalada Baydhabo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo cambaariyay xariga loo geysay Muqtaar Robo gudiga doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo galabta soo saaray jadwalkii ugu dambeeyay dhanka doorashada Ra'iisul Wasaare oo magaalada Dooxa kula kulmay dhigiisa dalka Qatar madaxweynaha dalka Eritrea iyo wafdi horkacayo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho dawladda Kenya oo ciidamadii ugu badnaa geynaysa Suudiinta ay la wadaagto Soomaaliya koox hubeysan oo dilal ka geystay magaalada Boosaaso la qabtay iyo qaraxyo ka dhacay dalka Afghanistan ay ku dhinteen askar u dhalatay dalka Mareykanka warshada isbuunyada Shaakir taya iyo taabagal weeye markale fiid wanaagsan waa habeenimo khamiis Jimco ay soo galayso waana 13 bisha 12 sanada 2018 dhageystayaal u diyaar garooba wararkaas oo dhan inaad maqashaan waxaan eegi doonaa xaaladda magaalada Baydhabo oo maanta ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata kadib markii la xiray wadaadka Muqtaar Robo Abu Mansuur oo kamid ah xubnaha musharaxiinta ka tirsan waa xubnaha musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha magaalada Baydhabo warar soo baxeen waxa ay sheegeen in wadaadka la xiray kadibna galabta laga soo dejiyay magaalada Muqdisho hadaba xarigiisa sida wax u dhaceen waan eegi doonaa laakiin Baydhabo aan ka hormarina sida ay caawa xaaladdu ay tahay wariyayna Sid Cali Muuse ee qadka ku jira Sid Cali marka rabeen wanaagsan haween lamid ah dabasha aad u mahadsan tahay haddaan ka warbixiyo xaaladda guud ee magaalada Baydhabo xaalka wuxuu yahay mid degan kadib markii maanta magaalada Baydhabo rabshado ay ka dhaceen ka tagow Sheekh Muqtaar Robo xiritaankiisa magaalada maanta waxaa ka dhacay xabadeen oo waliba ay ka dhasheen khasaaro dhimasho dhaawac isugu jiraan xaalka magaalada caawa wuxuu yahay mid degan walow inkastoo magaalada guud ahaanba ay xiran yihiin aysan jirin gaadiid socda ama dad oo u furan ganacsi maadaama maanta magaalada Baydhabo lagu soo daajiyay wadooyinka ugu muhiimsan kuwa aada saldhiga Baydhabo madaxtooyada iyo kuwa kaleba dhagaxaan iyo waliba goomooyin oo lagu gubay halka hadda aad u degan yahay balse waxaa jira cabsiyo laga qabo in mar kale ay dhacaan xabado kuwaasi oo u dhaxeeya ciidamada laamaha amniga ee sugaya inta u dhaxaysa madaxtooyada iyo saldhiga booliska degmada Baydhabo oo aan waxba u kala xigin iyo waliba ciidamada taageersan Sheekh Muqtaar Robo Abu Mansuur oo maanta xarig loogu geystay gudaha magaalada Baydhabo magaalada inta ugu muhiimsan wadooyinkeeda waxay yihiin kuwa xiran ma jiraan wax dhaqaaqyo oo ay sameynayaan gaadiidka ama dadka gudaha magaalada Baydhabo ku ganacsada walow magaalada Baydhabo haweenidii hore ay ahayd ama sida caadiga ahayd ganacsi uu furnaa muddo ilaa waliba 6 haweenimo balse caawa magaalada waxay tahay mid ka qacayo kaliya qaac iyo waliba dhagaxaan ay buuxaan wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Baydhabo marka Sid Cali wali waa laga baqayaa in mar kale rabshado ay ka dhacaan oo waliba loo badinayo dagaal beeleedyo magaalada ay ka qarxaan dawasha kuwa taageersan Sheekh Muqtaar Robo magaalada waxay ka joogaan gadiga dambe oo waxay u diyaarsan yihiin in ay dagaal ku qaadaan inta u dhaxaysa saldhiga iyo waliba madaxtooyada walow hadda ciidamada dawladda federaalka kuwa Koonfur Galbeed ay dhufeysyo ugu jiraan inta u dhaxaysa saldhiga iyo waliba madaxtooyada inta la gaarin gudaha madaxtooyada walow mar aan soo dhaxmaray inta u dhaxaysa madaxtooyada saldhiga ay haayeen kuwa loogu jiro dhufeysyo ay jirto baqdin in mar labaad isku dhacaan ciidamada taageersan Muqtaar Robo iyo kuwa ilaalada ka ah saldhiga iyo waliba kuwa madaxtooyada walow shacabkana intooda badan xaafadaha ku soo dhow madaxtooyada iyo saldhiga ay yihiin kuwa dhaqdhaqaaq ay joojiyeen oo magaalada dhinaca kalena waxa hadda ka socda ilaa hadda banaanbaxyo oo goomooyin iyo dhagxaan ay ku soo daadinayaan kuwa taageersan Sheekh Muqtaar Robo shacabka iyo waliba ciidamada marka sida Cali waxaan u fahnay in magaalada laba dhinac ay u kala qeysan tahay dhinacna ay joogaan dhalinyaro taabacsan ama taageersan ba wadaadkan hadda la xiray Muqtaar Robo ee musharax ahaa dhinacna ay joogaan ciidamada booliiska gaarka iyo booliiska dhawaan la geeyay iyo waliba
oo waliba dhanka madaxtooyada iyo saldhigga booliiska ay ku taalo marka laba dhinac in magaalada u kala qaybsanta hadda taasi ayaa cabsi ku abuurtay shacabka ku nool magaalada Baydhabo gaar ahaan kuwa kusoo dhow madaxtooyada iyo inta u dhaxaysa afridoodka oo ah bartamaha magaalada oo ay kala joogaan sida adigu sheegtay ciidamada taageersan Sheekh Mukhtaar Robow ama wadaadka iyo waliba kuwa laamaha amniga iyo kuwa ilaaliya madaxtooyada iyo waliba saldhigga iyo divisionka oo ah meesha uu degan yahay taliyaha General Abdiraxmaan Aadan oo ah xafiiskiisa walow ay jiraan ciidamo oo boolis ah iyo kuwa military isku dhafan ay kusoo gadaamin yihiin agaga ay taliyaha iyo waliba taliyaha degmada ay kulli taliyaha saldhigga degmada ay kulli yihiin inta u dhaxaysa madaxtooyada iyo waliba saldhigga degmada Baydhabo marka mar walba waa laga baqi karaa in rabshado ay dhacaan oo waliba dagaalaha halka ay ka dhacaan dawaasha maanta markay socdeen xabadaha ama kolkii Sheekh Mukhtaar Robow xariga loo geystay waxa xabadaha ay socdeen in ku dhow hal saac iyo bar waxay ahayd xabado oo marba dhinaca kale ay kasoo galayaan ciidamada taabacsan Sheekh Mukhtaar Robow oo waliba saddexda dhinac ee madaxtooyada laga gala ama elboorka ku gadaamin min hal jeer ayay kasoo weerareen macquul waaye in mar labaad ama caawa ay dhacaan xabado taasi oo cadeynaysa dhifeysida iyo waliba ciidamada oo diyaarsan ciidamada taabacsan Sheekh Mukhtaar oo waliba ay joogaan gadiga kale ee magaalada Baydhabo sida cali aad mahadsan tahay waxaa naga xasuusana wixii macluumaadyo ay kasoo kordhaa wararka la xiriira magaalada Baydhabo iyo waliba rabshadihii maanta ka dhacay magaaladaasba intaan ku guda jirno warka iyo waliba sidoo kalena barnaamijka dhacdooyinka 9 iyo barka soo galay caawa ayaad ku dhageysan doontaan macluumaadyadii ugu dambeeyay xaalka magaalada Baydhabo iyo hadii wax isbedelaan sida wariyeen uu sheegayay magaalada laba dhinac ee noqotay dhinacna waxaa ku sugan ciidamada booliiska gaarka koonfur galbeed waana dhanka madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha dhinacna waxaa magaalada ka jooga dhalinyaro taageersan wadaadkan kala soo horjeeda xariga loo geystay Mukhtaar Robow macluumaadinta ka badanse barta internet-kan ku leenahay radio.risala.com halkaas aan kugu soo gudbin doonaa hadaba dhinaca kale sida uu dhacay xariga loo geystay Mukhtaar Robow waxaa warar soo baxaya sida maanta wararkan aad ku maqleyseen musharax madaxweyne Mukhtaar Robow iyo waliba musharaxiinta kale ku tartamaya ama u tartamaya xilka madaxweynaha ayaa badankood lagu wargeliyay in madaxtooyada Baydhabo ay soo gaaraan halkaas oo lagu ballamiyay shirnu uu ka dhici lahaa laakiin waxaa la tilmaamay in halkaas laga kaxeystay Mukhtaar Robow waxaa goobjoog ku ahaa dhacdadan markii ay dhacaysay xildhibaan Axmed Ismaan isgoy nil yiraahdo oo ka tirsan xubnaha xildhibaanada baarlamaanka kana qayb ah waliba xubnaha wax ka wada arinta doorashada daqiiqado kor ayaan qadka telefoonka kula xiriir xildhibaanka waxaan ka weydiiyay sida maanta u dhaceen ولي ويرين في سماح مدحوينها كونفور galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka Abdulqaadir Shariif naqday marka isla fiiski shay warkiis madaxtooyadii dadkii marka meeray lagu boqodi lan kala raaw baro wala aw masuur yirdilu bijaysi marka saaso wala diyan kulli wareerku dib marka meeray ilinko dhaw gala madaxtooyadii meelan marka meeray afad bilaawati abada ilaalin istii ay timaa marka meeray badankii gida inay kili gida oo bijawraniya in naftaan madaxtooyada hore badoogali ولا من دمر كبلاصوت المجالات دبعت بدن مدارات بناء تجارة تدو مديلاي جود إسرائيل مركب راي شبه أو لانك ناو ميل لانك المدينة يعني شواي كل دبعت مير لكن كل دبعت الأسبيري ساتور كل كلا هينو من مبشر من داريا ورجعين. حلبانة عدي الله الله حلقة مدحتوية كتسقنت. مدحتوية ميل برتلان كلا كوبلا يسوقنا إن بدنا يعني لا سطح الدبعة أو الكونفور بالبدء وهايني لما تلو فيه يعني. لأنه مدة عمرك لأن كوب وشيء مرك مراي فهم هذا مرك أو مركلي جبلاي إن كاي يجري وريالا ناقول كمودي اللبان أنا ليه مرك مراي أنا هاران تيجري أو اللبان هذا لما أنتن بينك سوقنا يعني اللبان هو محمد عبد الله راو مرك مراي ميلا هاران تي كل إذا ما أنتن بينك سوقنا لكن ولا ركول نهد بس ميلو كدي بكل إلى أنتن أقرب ركول نهد دجال ميلان لكن تلقي إن دجال قالوا دبعت كدير ولي كتلا جليه xildhibaan Axmed Ismaan wareysigiisa oo dhameystiran oo qaybo badan oo kaga hadlaya marxaladda koonfur galbeed xildhibaanada qaarkood oo sheegayaba in aysan ka qayb gali karin doorasho ilaa inta ay tilmaameen wax laga bedelay amniga magaalada wareysiga inta ka badanse
waraysiga xildhibaankan iyo weliba waraysyo kaloo arrintan la xiriirase dhacdooyinka ayaad ku dhageysan doontaan 9 barka caawa soo geli doona insha allah. dhinaca kale intaanan ka bixin warka la xiriira xariga Mukhtaar Robow, wasaaradda amniga Soomaaliya qudhida war ay ka soo saartay xariga wasaaraddan waxa ay qiratay in dowladda Soomaaliya ay xariga ayadu ay u geystay Mukhtaar Robow la xiray kadib markii ay wasaaradda amnigu ay shaacisay in qodobo qaar oo wali Mukhtaar uusan fulin oo lagu ballamay. waa kan wariyana Ayub. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya oo looga hadlay xariga Mukhtaar Robow oo soo gaaray idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qornaa sida tani: wasaaradda amniga gudaha iyadoo tixraacaysa war-saxaafadeedii hore uga soo baxay bishii Oktoobar 4, 2018 iyo 12 Diseembar 2018 ee ku saleysnaa in aan muwaadin Mukhtaar Robow Abu Mansuur buuxin shuruudihii ku xirnaa iyo heshiisyadii lala galay dowladda si looga qaado dhammaan cunaqabateyntii saarneed shuruudahaas oo ay ka mid ahaayeen in Mukhtaar Robow uu ka tanaasulo fikirka xagjirnimada si cad oo aan qarsoodi lahayn oo u cambaarayo fikirka xagjirka isla markaana uu taageero dowladda federaalka Soomaaliya in aanu ku talaabsan ficil wax u dhimaya nidaamka dawliga ah iyo minjaxaabin ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. wasaaradda amniga iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay dadaal dheer u gashay sidii Robow loogu qancin lahaa in uu dib ugu fiirsado talaabooyinka uu kaga hor imaanayo dhammaan shuruudihii lala galay ee ku saleysnaa xasiloonida kala dambeynta iyo nidaamka dowladnimada. nasiib daro wuxuu bilaabay inuu soo galiyo hub iyo dagaalyahano magaalada Baydhabo, wuxuuna abaabulo ciidan uu ugu talagalay handadaad iyo qalqal ka dhan ah amniga guud ee dalka gaar ahaan magaalada Baydhabo, taasoo muujinaysa inaan Mukhtaar Robow marnaba ka tanaasulin fikirka xagjirnimada ahaa ee diyaarna uu u yahay in uu mar kale dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed. haddaba iyadoo wasaaradda amniga digniino hore ay ugu soo saartay faldambiyeedyada Robow uu kula jiro, waxay maanta oo taariikhdu tahay 13 Diseembar 2018 soo xirtay muwaadin Mukhtaar Robow ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ayub waad mahadsantahay. wuxuu soo koobaya qoraalkii ka soo baxay wasaaradda amniga Soomaaliya oo ay kaga hadashay xariga loo geystay Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo kamid ah xubnaha musharaxiinta ka tirsan ama u tartamayaba kursiga hogaanka Koonfur Galbeed. haddaba dhinaca kale isla guddiga doorashada Koonfur Galbeed galabta waxay soo saareen jadwalkii ugu dambeeyay dhanka doorashada xilli magaaladaas ay marxalado siyaasadeed iyo weliba mid amniba ay ka taagan tahay. guddiga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa maanta soo saaray jadwalka doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya 19 bishan aan ku guda jirno. guddiga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay in hadal jeedinta musharaxiinta ay bilaaban doonto 16 ilaa 17 bisha aan ku guda jirnay December ay ku egtahay. sidoo kale guddiga ayaa sheegay in tababar guud la siin doono golaha wakiilada Koonfur Galbeed maalinta Talaadada taariikhdu ay ku beegantahay 18 bisha December. isla guddiga doorashada waxa ay sheegeen in doorashada madaxweynaha ay dhacayso 19 bisha December kuna beegan maalinta Arbacada ay soo socota oo waqtiga ugu dambeeya doorashada. waana qoraalkii ugu dambeeyay ka soo baxay guddiga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ay ku shaaciyeen habraaci ugu dambeeyay dhanka doorashada. waa hagaag wararka kalena waxaa kaloo kamid ah madaxweynaha dalkaas Eritrea iyo wafdi horkacay ayaa soo gaaray maanta magaalada Muqdisho. walow wafdigan intii soo gaarin kor dhammaan waxaa la xiray wadooyinka ugu muhiimsan caasimada, dadka ayaana isticmaalaya lugahooda oo lama ogolan gaadiidka dadweynaha ee raacaan BLka iyo weliba kuwa yararka iskabada bajaaj yar ee dadka way raacaan. ammaanka ayaana si weyn loo adkeeyay, ciidamada booliiska gaarka ah ayaana amniga caasimada sugayay. haddaba wafdiga soo gaaray magaalada Muqdisho iyo habka loo soo dhaweeyay waa kan Cali Xasan Cali. wafdi ballaaran oo hogaaminayay madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afwerki ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya inta badan xubnaha golaha wasiirada uu horkacay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay madaxweyne Afwerki. wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Axmed Khayr Cabdi oo la hadlay warbaahinta soo dhaweynta kadib ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedka uu yimid Muqdisho madaxweynaha dalkaasi Eritrea iyo wafdiga hogaaminayo. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta waa maalin farxad weyn oo rabnay inaan ku soo dhaweyno madaxweyne Asiyaas Afwerki Soomaaliya oo ballan qaaday inuu imaan doono. waxaan rajaynaynaa inay noqoto maanta maalin aad ugu fiican xiriirka labada dowlad Soomaaliya iyo Eritrea. waa laba wadan oo walaalo ah, waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Eritrea u yimaado ciidda Soomaaliya. taasna waxay u tahay farxad weyn oo
ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto oo qayb ka qaadato xorriyadda waddanka Eritrea sida ogtahay madaxweynaha ayaa ku tagay booqasho taariikhi ah booqashadii jawaabteediina maanta ayuu ballan qaaday inuu yimaado madaxweyne Afwerki waana soo dhaweynaynaa si farxad leh insha Allah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer riiso oo qayb ka ahaa madaxdii ka qayb gashay soo dhaweynta ayaa waxa uu ka waramay sida ay ugu diyaar garoobeen maamulka gobolka banaadir soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dalkaasi Eritrea oo farxad waa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan caasimadda muqdisho waxay u diyaar garoobaysaa soo dhaweynta madaxweynaha dalka Eritrea oo runtii casuumaad ka helay madaxweyne Farmaajo tanna waxayna tusaysaa horumarka uu dalku tallaabsanayo maanta madaxweyne dalka inuu yimaado Soomaalidana ay muujiso sida ay soo dhaweynta iyo walaaltinimada ugu wanaagsan tahay runtii waa sharaf weyn waliba madaxweyne Afwerki hore ayuu u deganaan jiray magaaladan hore ayuu reer muqdisho u ahaa waa uu yaqaanaa isagoo madaxweynahan inaan soo dhaweynayo iyadana sharaf weyn bay noo tahay shacabkana waxaa uga mahadcelinaa sida sharafta leh ay tan iyo shalay uga shaqaynayaan soo dhaweynta maantana aan aragno shacabkii oo isku duuban maamulka gobolka banaadir iyo dowladdiiba in si heer sare soo dhaweynta u dhacayso waa markii ugu horeysay uu yimaado Soomaaliya madaxweynaha dalkaasi Eritrea Afwerki iyadoona uu magaalada Muqdisho sii joogi doono muddo 2 maalmood waxa uuna kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda dalka ugu sareysa ومحسن علي حسن لنا كلنا مقالة الضوحة دالكاس قدر وحا كل ما يرى زارها الصومالية ولما رزارها دالكاس قدر لبض لنا عن وحي كوله لنا أرمها الصومالية صدق كلو حالة الماما ياه إن أي 6 بلا بدنا تبدو لما ديدا ودحيا ضوحة يا عاصمة الصومالية مقدشة وزير كرمها دي بدأ الصومالية دكتور أحمد عود عيسى يا ريت سكالية كلن كي ما أنت دحمري رئيس الوزراء يا رئيس الوزراء هنا يا رئيس الوزراء قطر وحها مد أضفي عن mid muujinayay xiriirka qatar iyo Soomaaliya ee qotada dheer leh meesha uu gaaray wuxuu ahaa mid walaalo iyo saaxiibo dib isu u kulmay labada ra'iisul wasaare waxay ka wada hadleen sidii xiriirkaas mar horeba ah mid aad u sareeya u heer sareeya sidii loo sii xoojin lahaa iyo sidii la isu kaashan lahaa iyo sidii dalka Qatar oo ra'iisul wasaarahooda u qiray horumarka Soomaaliya ka socda sidii loo garab istaagi lahaa loo xoojin lahaa wuxuu ahaa kulan aad u fiican kulan saa sheegay walaalo ishelay waxaa lagu heshiiyey oo intaan meesha joogno la saxiixay heshiisyo waxaa sidoo kaleeto la sheegay in diyaaradda qatariya ay mar dhow socdaalo ka bilaabi doonto muqdisho bisha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya kaasi asagana ugu dambeeyay guud ahaanba warkii fiidnimo caawa aad ka maqlaysan idaacadda Risale magaalada Muqdisho dhageysan wanaajintaas waxaa naga xasuusinaa in mar walba warbixinada ugu dambeeyay ee Soomaaliya waliba dhacdooyinka ka tagan magaalada Baydhabo iyo xiisada siyaasadeed dalka ka jira inaad ka heli kartaan page-kan internet-ka aan ku leenahay radio risala.com halkaas aan kugu soo bandhigi doono macluumaadkii ugu dambeeyay ee dalka nabadgelyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee dalka nabadgelyo